dhowaan garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho waxa ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ku qabatay diyaarado nooca droniska ah ee aan duuliyaha lahayn kuwaasi oo ciidanka hay'adaha amniga ay ku hayaan sida la sheegay magaalada muqdisho. intaasi dabadeed waxaa soo shacbaxday in diyaaradahaasi uu leeyahay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka waqtigiisu uu dhammaaday laguna magacaabo xildhibaan Sakariye Xaaji Cabdi. haddaba siyaabo kala duwan ayaa looga hadlay waxa ay yihiin diyaaradahaasi iyo saameynta ka imaan karta. haddaba waxaan arrimahaasi wax badan ka weydiin doonaa sida markaasi walaaca lagu qabo ama saameynta markaa ka dhalan karto diyaaradahaasi la sheegayo in lagu hayo meel ka mid ah magaalada muqdisho isla markaana garoonkeeda ay ku qabteen ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya. waxaan arrimahaasi wax badan ka weydiin doonaa taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ahna qabiir dhinaca amniga ah isla markaana ku sugan wadanka Mareykanka Ismaaciil Cismaan oo qadka Skype-ka si toos ah ugu jira. taliye muddo dheer ayaad ku soo jirtay arrimaha la xiriira amniga taliye ku-xigeenka nabad sugidda Soomaaliyana waad soo noqotay waxaadna ku tacalluqdaa weli arrimaha amniga. maxay yihiin diyaaradaha daroonka ah ee ciidanka ammaanka ay ku qabteen garoonka diyaaradaha ee muqdisho? cabdicasiis waa ku salaamaya adigii dhammaan daawadayaasha oo dhan meel walba ay joogaan. diyaaradaha daroonka ah ee qabatay hay-adda nabad sugidda NISA ee uu sheegtay inuu leeyahay xildhibaan hore Sakariye Xaaji Cabdi waa nooc ka mid ah noocyaha daroonka aan duuliyaha lahayn sida commercialka ah ay u iibiyaan shirkadaha qaarkood walow isbarbardhig lagu sameeyey droniska lagu qabtay garoonka aadan cadde iyo oo mid ka mid ah shirkadaha waaweyn ee laga leeyahay dalka Shiinaha oo sameeya daroonada noocaasa waxaa loo badinayaa inay tahay nooca loo yaqaan Magnum 3600 ama Magnum 3600. marka waa qayb ka mid ah daroonada culeyskeedana uu yahay ilaa 38 kilogram qaadi kartana ilaa 8 litir oo benziin laakiin aan lahayn meel looga qaado ama maaragtay looga raro biyo iyo sunta lagu buufiyo beeraha labadaba. waayahay dad badan ayaa ka hadlay diyaaradahaasi waxaana ay ku soo aaday xilli diyaarad nooca daroonka ah lagu weeraray ra'iisul wasaaraha dalka Ciraaq waxaana laga qabaa shakiyo iyo hadallo baraha bulshada ayaana looga hadlay weliba siyaasiyiin waaweyn ayaa naqdiyey diyaaradahaasi iyo sida ay ku soo gaareen magaalada muqdisho. dhowaana Puntland ayaa deegaanadeeda ka mamnuucday nooca diyaaradaha la qabtay ama kuwa daroonka la yiraahdo. saameyn amni ama walaac ma keeni kartaa arrintaas? cabdicasiis haa waxay keenaysaa saameyn amni iyo walaac aad u tiro badan sababtoo ah daroonkan xildhibaan hore Sakariye waxa uu sheegay inuu isaga leeyahay laakiin wax tafaasiil ah oo intaas dhaafisan uu bixiyay oo aan ahayn waxaan ku buufinayaa beero iyo waxaan ka kareynayaa maxaan ku yiraahdaa qaramada midoobay si ayax loola dagaalo waxay ahayd tafaasiil aan macno badan sameynaynin shakigana sii badisay. xildhibaan Sakariye waxaa laga rabay inuu soo bandhigo macluumaadka uu ka hayo diyaaradahaas specificationkooda waxa uu yahay nooca ay tahay meesha laga soo iibiyey si loo ogaado maaragtay daroonadaas la qabtay loogana shaki baxo. laakiin waxaad moodaa hadalladiisa isburinaya iyo waraysiyo badan oo uu bixiyey waxay sii abuurtay shaki badan iyadoo oo maaragtay shakiga weliba uu sii weynaaday maalintii Axad ahayd markii ra'iisul wasaarihii Ciraaq gurigiisa laba ka mid ah daroonada noocaas oo kale ah lagu weeraray oo dhibaato weyn ay ka dhacday gurihiina ay burbureen ilaa 7 ka mid ilaaladiisa gaarkaan ay ku dhaawacmeen. marka mugdi badan baa ku jira daroonada waqtiga lagu soo aadiyay la keenay iyo maxaan ku yiraahdaa qaabka loo u sheegay in loo soo iibiyey xildhibaanka oo ah beero iyo ayax oo aan macno badan sameeynin waqtiga xaadirka. maxaa ku jaban taliye haddii mid ka mid ah muwaadiniinta ama baarlamaanada dalka in uu keeno dalka diyaarado uu isaga ku sheegay in horumarinta beeraha ama in buufinta cayayaanka loo adeegsanayo maxaa ku jaban maxaase shuruudo ah loo baahan yahay shaqsiga keensanaya nooca ka mid ah diyaaradahaasi dalka Kenya? waxba kuma jabna laakiin waxa looga baahan yahay dawladda federaalka naftirkeeda in ay leedahay shuruucdii maaragtay lagu xakameyn lahaa diyaaradaha droniska ah. laakiin shakiga meesha ugu weyn oo ka yimid waxay tahay
nooca sawirada ah ee laga soo qaaday droniskan lagu qabtay garoonka muqdisho ma aha nooca beeraha loo isticmaalo. nooca beeraha loo isticmaalo waxay leeyihiin maxaan ku idhahdaa barbarolus waxa la yidhahda oo 4 xabo ah, waxayna caloosha hoose ku wataan maaragtay fuustooyin waaweyn oo lagu shubo ama biyo ama sun lagu shubo oo maaragtay wayna ka weyn yihiin nooca hadal meesha maaragtay lagu qabtay garoonka muqdisho. marka waxaa iskeeni waayey nooca sida uu hadlay xildhibaanka iyo shaqada lagu qabanayo droniskaas iyo nooca ay yihiin ma aha kuwa iskeenaya. droonada noocan ahna waa kuwa ay sida aad u isticmaalaan kooxaha ISIS-ka iyo kooxda PKK ee la dagaalanta dowladda Turkiga. xaggee ayaa lisleeyahay way ka soo galeen dalka diyaaradahaasi ama laga soo iibiyey? waa hawl u taalo hay-adaha amniga inay dabagalaan ay wareystaan maxaan ku idhahdaa lacagta lagu soo iibiyey cidda iskale meesha laga keenay sababta dalka loo keenay oo aan caddayn. waxaasoo dhan caddayntaas waxaa laga rabaa laamaha amniga. waxaan arkaya xildhibaanka oo waraysiya badan bixinaya eedeyn ujeedinaya xafiiska madaxweynaha oo uu ku eedeynayo inuu asaga ka haysto, laakiin xildhibaan Zakariya su'aalo badan oo mugdi badan uu ku jiro markii dib loo fiiriyo malafkiisa taariikhdiisana shakiga sii badanaysa ayaa meesha taala. waxaa la rabaa inuu ka garbaxo ummadda Soomaaliyeed. waayahay dalka qayb waxaa haysata dowladda, qaybna waxaa ku sugan ciidamada midowda Afrika AMISOM, maamul goboleedyadana way jiraan, laakiin qaybo badan oo xogaga al-shabaab ay haystaan ayaa jira. ma kula tahay Soomaaliya dhul ballaaran oo beeraley ah oo diyaarado loo adeegsan kara ayaa furan oo muhiim ah oo amni ah, ma kula tahay inuu jiro? maya ma jirto. sida aan wada ognahay dhulka beeraleyda ugu badan Soomaaliya waa gobolada Shabeellaha Dhexe, Shabeellaha Hoose, Jubbada Dhexe, Jubbada Hoose. waa jiraan gobollo kale oo beero leh, laakiin intooda badan wax soo saarka beeraha waxaa ugu badan 4taas gobol iyo gobolka Hiiraan. oo intooda badan gobollada aan soo sheegay waxay gacantooda ku jiraan kooxda al-shabaab marka loo fiiriyo maaragtay beeraha gobolladaas ay leedahay. marka xildhibaan Zakariya beeraha uu sheegay in maaragtay ayax looga buufinayo ma uusan caddayn. mar wuxuu yiri Puntland, mar wuxuu yiri maxaan ku idhahdaa biyaha iyo webiga ayaa lala dabagalayaa oo si maaragtay fatahaadii waxyaabo badan oo aan macno badan samaynayn. laakiin daroonadan la qabtay waa daroonada inta badan ay isticmaalaan kooxaha argagixisada, waxaana la yidhahdaa suicide drones ama daroonada isqarxiya ayaa loo yaqaanaa, oo waa kuwa caan ka ah dhinaca argagixisada hadday noqon lahayd ISIS iyo hadday noqon lahayd kooxda la yidhahda Xisballah iyo wixii hadda ka dhacay Ciraaq oo aan la wada socono oo looga shakisan yahay shiicada taageerada ka hesha Iiraan. ogaanta inta aad ka shaqaynaysay hay-adaha amniga Soomaaliya oo aad mar ku soo noqotay ku-xigeenka nabad sugidda, ma jirtay in diyaarado intaa la eg tiradooda iyo noocooda in dalka la keenay? maya ma jirin. waxaa jiray diyaarada yaryar oo aad u yaryar oo camera leh oo loo ogolaaday aan annaga u ogolaana fasax siinay inay isticmaalaan maaragtay saxaafadda magaalada Muqdisho gaar ahaan kuwa TV-yada si ay maaragtay marka ay jiraan cayaaro ama ay jiraan fantasiya waaweyn oo la isugu soo baxayo ay muuqaallo uga duubtaan. daroonada aan annaga markaas waagaa fasaxnayna waxay ahaayeen kuwa gaari kara keliya ilaa iyo 50 mitir. waxaana laga mamnuucay dhammaan agagaarka garoonka diyaaradaha ee aadan cadde oo aan loo ogolayn wax daroon ah inay kaaga duusho ama ay hawadeedu kusoo dhawaato, iyadoo aan ku xirnay jams geedaha jaamka la yidhaahdo oo maaragtay ka celinaya ilaa iyo 150 mitir intuu jirta airportka degmada Waaberi iyo dhinacan maxaan ku idhahdaa Jazeera labadaba. marka ma aysan jirin diyaarada noocan, laakiin diyaaradaha noocan ah gaaraya ilaa iyo 180 kilomitir socon kara, ilaa iyo 3 saacadood hawada ku jiri kara, isla markaasna gaari kara xawaaro dhan ilaa iyo 15,000 oo feet oo cirka ah oo aan ishaada qabanaynin. waxay dhaliyeen shaki badan oo laga qaaday diyaaradaha sababta loo keenay cidda loo keenay labadaba. aad iyo aad buu mahadsan yahay. kaasina wuxuu ahaa taliye ku-xigeenkii hore ee hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliya Ismaaciil Cusmaan, islamarkaana ka faallooda arrimaha amniga ahna qabiir dhinaca amniga deganna waddanka Mareykanka.